Cabdisalaan Maxamed Jaamac Sallo, Axmed Cabdi Aw Cali iyo Axmed Deyr oo kamid ah golaha dhexe xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inay iska casileen xubinnimadii golaha dhexe xisbigaasi kulmiye iyagoona sharaxay waxyaabaha ku kalifay inay iska casilaan xisbiga kulmiye sidoo kale waxay sheegeen inay si rasmi ah ugu biireen xisbiga mucaaradka ee wadani anagoo saddex xubnood oo ka kooban xubnihii howlwadeenadii gudidii fulinta ee gobolka xubno kamid ah iyo xubno muhiim oo ka tirsan xisbiga kulmiye waxaanu halkan insha Allah bidmilaahi kariin idinku soo gudbin doonaa shir jiraayidkan oo daaran inaanu gabi ahaanba ka baxnay xisbiga xaakimka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee kulmiye oo aanu muddo badan kamid ahayn waxaan kamid ahay xubnihii ugu muhiimsanaa ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer taariikhda badan ka soo shaqeynayay sida voluntariga iyo hagar la'aanta ee xisbiyahanka ugu soo shaqeynayay aanu eegnay maslaxadda caamka ah ee dalka iyo sida uu socdo ololaha kaambeynka doorashooyinka qaranka ee muddada kooban ka hadhay markii aanu qiimeynay platformka xisbiyada qaranku ay ku galayaan kaambeynka waxa noo muuqatay saadaasha xisbiga jamhuuriyadda Soomaaliland qaabkii ugu haboonaa ama ugu munaasibsanaa ku galaya inuu yahay xisbiga wadani annaguna waxaan go'aansanay marka inaanu ka mid noqono waxay u muuqataa kacdoonka shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu qayb ka noqono anigoo Sultan Cabdisalaan Maxamed Jaamac maanta halkan waxaan ka sheegayaa anigoo ku hadlay magacayga iyo magaca maanta xisbiga aan la shaqeynayay muddada dheer ee aan u soo halgamay ee aan ku soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland horta aflagaadiin meeno codna ka sheegamayno aad baan ugu mahadnaqay dadkii la shaqeynayay ee muddada dheer aan la shaqeynaynay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan maanta isku gartay inaan xisbigii kulmiye ka baxo oo aan ku biiro xisbiga wadani ay ku horeysiinayaan Saleebaan taariikhdu ay tahay 17 bishii 10aad 2017 waxaan halkan ka cadeynaya anigu maanta oran maayo kulmiyii maanta maan hayn anigu kulmiyii gobolkan Burca lagu bilaabay baan ahaa gudoomiyaha iyagii gobolkii hore sahal buu ahaa gudoomiye ku-xigeenkina wuxuu Maxamuud Salaan ninkii garanayay baa garanaya anagu waxaanu hayn baleeyiradii guushii kulmiye keenay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa haliyay qaranku tijaabiyay qalbigiisu qarannimo ku jirto jismigiisuna qarannimo uu ku jiro aragtidiisuna ay qarannimo ku jirto kulmiyaha nayuuga ee maanta yimi waxa lagaga dayan karaa inaan kulmiye dalka hogaamin karaya inaanu ahayn ragga maanta mas'uuliyiinta ayaa lagu garan karaa in kulmiyihii ummadda qarankeeda qalbigeeda iyo shacabkeeda mid kasbanaya inaanu ahayn had iyo jeer waxa lagu celceliyaa kulmiye waa mid la sharabay de Axmed Siilaaya la sharabay kulmiyaha maanta lama sharabin qaranka waxa laga badbaadinaya waxa maanta aynu dhaheeno arkoonaya waxaan u sheegayaa shacabka iyo intii ila aragtiday kulmiye galitaan ma laha ka bixitaan buu leeyahay annagu waan iskaga baxnay ka baxayaan anigu barwaaqo aadan Maxamed TV-ga caalamiga Universal magaalada Burco.